waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka baxay dafcadii ugu horeysay ee xujay ah kuwaasi oo soo gudin doona waajibaadka xajka. Xujaydan ayaa ah kuwii ugu horeeyay ee Jubbaland ka ambabaxo waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay sidaan oo kale u sii dhoofi doonaan xujayda. Qaar ka mid ah xujaydii ka dhoofaysay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta la hadlay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Qaadir Colaad Axmed oo ka soo xajiyay magaalada Doobley. waxaan marka hore leeyahay alxamdulillaah ilaahayga aniga oo nool iwaafajiyay inaan xajiyo oon helana wax xalaal oo ku soo xajiyo in badan baa ilaahay uga mahadinayaa. waxaan leeyahay ilaahay waa mahad leh, ilaahayna inuu naga aqbalo ayaan ilaahay ka baryaynaa oo naga aqbalo oyeelkana nabad noogu soo celiyo annagoo nabada. waxaan ka dhoofaynaa maanta garoonka Kismaayo. aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka dhoofayo garoonka diyaaradaha Kismaayo aan u socdo meesha barakaysan ee mataqaanaa Makka ee xajka maqbuul Allah ka dhigo Allah naga aqbalo. waxaan aad iyo aad mataqaanaa ugu ducaynaya ama ugu hambalyeynaya ama mataqaanaa ugu bogaadinaya ehelkayga iga bixiyay iyo dadka iyo walaaladayda wixii Mareykan joogo wixii xariiqa qaxootiga joogo Kenya iyo wixii Canada joogo. Xakiin Nuuri Xasan degan Kismaayo gaaraan xaafadda Farjano waxaan u socdaa Ilaahay idmo inaan soo xajiyo. salaatu muslimaan salaamaya dadka muslimiinta meesha joogo aniga maanta dareenkay aad u kacsan yahay kana xajinayo magaalada Kismaayo meeshaan ka soo xajinayo go'aare aad u mahadinayaa shirkadii arrintaa fududaysay ilaahay weynaa wax ilaahay arrintaas ma arkay waajibiyay. waxaan ku faraxsanahay xajka aan u socdo ilaahay ii fududeeyay dadka aniga xajigayga iyo ummad badan oo Soomaaliyeed oo ilaahay noo gartay noo fududeeyay. marka waxaan ku faraxsanahay shirkadda iyadana noo fududeysay. gudoomiyaha madaxa diyaaradaha magaalada Kismaayo Miir Yuusuf Class oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay socdaalka xujayda waxaana hadaladiisa ka mid ahaa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. إلهي بقى مهد إسكاله وحان ما أنت أنبب بحنينا حجيدي شبوين كبحيسي أنيقو قدومي أنيقو شركاتها دوليماتك Jubbaland Kismaayo madaxoodii. sidoo kale madaxa diyaaradaha xafiiska Rayaan ayaa isna dhankiisa la hadlay warbaahinta. ayba mahadleh allihii isku keenay halkan annaga oo rabno insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo maanta ay tahay taariikhdu 22 bishii 8 2016 in garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo aan ka dhoofino xujaydii ugu horeysay ama dafcadii xujayda ee ugu horeysay ee ka baxaysa sanadkan Jubbooyinka. wadambeyn maarayaha airportka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xujayda ay ka kala yimaadeen dhammaan deegaanada Jubbaland. farxad weyn inoo ah sidaad aragtaanba garoonka caalamiga ah ee Kismaayo airport in ay ka dhoofayaan xujaydtii Soomaaliyeed gudashadii maartay waajibaadka xajka oo maartay maanta safartii ugu horeysay xujaydtii ay ka bilaabeen dhoofitaankoodii ugu horeeyay garoonka caalamiga Kismaayo. xujaytaas oo ka imaanaya dhammaan degmooyinka iyo gobolada guud ahaanba Jubbaland. waajibaadka xajka Zakariya Abdiqaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo.